iyo in magaalada xilligan laga saaray saldhigyadii booliska garoonkii diyaaradaha iyo goob kastana laga qabsaday waa taliyihii booliska degmada Doolow uu soo magacowday Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan ciidankiisii oo baxsad ah ay u carareen dhankaasi iyo balad xaawo markaasa Itoobiya iyo ciidanka Jubbaland oo iswataana soo weeraray haddaanu ka baxaynaa balad xaawo shacabka Soomaaliyeed ha ogaadaan calooshoodii shaqaystayaashii balad xaawo joogay ayaa ka naxay jabka iyo guuldarada ku dhacay maleeshiyaadka ay u soo direen Doolow xilligan degmada Doolow waa amni waa lagu ganacsanayaa wax dhibaato ama jiraan maleeshiyaadkii magaalada maanta weerarayna waxna waxa laga dhigay wax la qabto oo maxaabiis waxna hubka dhigis baa lagu sameeyay wixii kale oo diiday inay isdhiibaanna waa la laayay intii kalena waa farxadeen dhankaasi balad xaawo iyo meesha ay ka yimaadeen ayaa loo diray maalmo ka hor ayaa maleeshiyaadkan diyaarado looga soo qaaday xamar waa kan wasiirka amniga Jubbaland General Dumal oo cadaynaya qaabkii ay wax u dhaceen maantay iyo dhar baaxadii kululeyd ee ku dhacday codkiisana idin daari doona soo dhawaada dhamaantiin muuqaalkan dhamaantiin share gareeya dhamaantiin like gareeya YouTube kanana ku soo biira guul weyn ayay gaartay Jubbaland mar kale xiisadii Raskamboni waa noogeysay ku dhamaatay kulbiyow ayadana oo jubbada hoose ah maleeshiyaadkii joogay maantay waa la soo afjaray ee dawladda Jubbaland ka soo horjeeday xilligaana deegaanka kulbiyow waxaa gacanta ku haya ciidamada daraawiishta Jubbaland dhanka kale Jubbaland dagaal adag ay ku jirtaa Jubbaland oo furimo badan ah magaalada Doolow oo madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan joogo ayaa maleeshiyaadkii calooshoodu shaqaystayaasha ah ee xabaalo qoftii doonaysay doorashooyin Ismaaciil Cumar Geelle uu wato inay ka fuliso Jubbaland gobolka Gada Doolow iyo ka fuliso balad caawiyo Garbaharey doonaysay ayaa ayagana hilfaha loo qaaday oo la soo gabagabeeyay dagaalku soo ku bilowday iyo wax kasta oo dhacay iyo saddexdii qodob ee ka horeysay intaysan ciidamada Jubbaland hubka dhigis ku samayn baan idin la wadaagi doonaa oo madaxweyne ku xigeenka ayaan markaas inoo daari doona intaana madaxweyne ku xigeenka codkiisa idin daarin meel walba waxa lagu qorayaa ciidamada xasan iyo kooxdiisii waliba askarta afkiisa ku hadlayso waxay leeyihiin ciidan Itoobiyaan ay soo weeraray ciidanka Itoobiyaanka ee soo weeraray aan leedihiin saacad ka hor xasan saacad ka hor warqadu soo qor wafdi oo hogaaminayo wasiir Cali Balcad baa waxay ka dagayaan Addis Ababa si ay u dhameystiraan wada hadalladii Ankara waradaaba wax lagu adaaba xaqaagii lagu haystaa biyaagii muxuu yahay wafdigan aad diraysid muxuu yahay wafdigan Itoobiya aad u diidaysid askariga markay u dhimanayeen in Itoobiya la dagaalamaya ka yeelay waa kee saacad kama soo wareegin markuu wafdiga u diray Cali Balcad iyo aadeen Addis Ababa iyaga oo leh wax walba qaado ninkaas ogaadeen ee Axmed Madoobe la qabtay Itoobiya intaas way badii la iibi ma taqana ciidankii loo fasaxay inay kaga qayb galaan Atmas ay ku biiraan loo fasaxay ilma adeerayaal jilbu haysta Cali Balcad baa jilbu haysta ilma adeerayaal xabashiyay Axmed Madoobe aan la dagaalamaynaay nala qabta Itoobiyaanku istiraatiijiyadooda kama kaftamayaan meeshana nin dool ku yimido reer ma taqaana aan deegaanka u dhalan garab ma siinayaan wixii ka baxsaday ee ciidankii federaalka ee dhanka xuduudda u soo carabay dheen laabta saasi ciidanka Jubbaland ku qabteen ciidan Itoobiyana maanta dagaalamay ma jirin ciidamada Jubbaland baa iska dhaxshay ila arka wasiirka amniga Jubbaland Dumal oo isna reer Gada ah oo ka sheekeynaya qaabkii wax u dhaceen ka reer Gada oo gobolka Gada ku nool Soomaali heshiisha dunidana la heshiisa meel kasto ay tagaan dab bay qabadsiinayaan Raskamboni ma yimaadeen xabad bay ka rideen Doolow oo ugu amni fiicneed Soomaaliya degmada Doolow degmada ugu amniga fiican bay Soomaaliya sida wasiirku joogeen hay'adihi shisheeye oo dhan ee ma taqaanay dadka caawin jiray baa ku sugan xalanaha xamar oo kale ahay indhahaas rabay inuu ka rido Xasan maanta xabad buu ka bilaabay amni bay ahayd kala dambeyn baa ka jirtay ciidamada daraawiishta Jubbaland baa joogay yaa xabada ka riday yaa dagaalka ka riday mas'uuliyad kasta oo ka dhaltay wixii maanta dhacay Xasan iyo kooxiisa qaadaysa waayo Raskamboni dagaal kama jirin Doolowna dagaal kama jirin cidda xabada ridayna waa iyaga cidda ciidamada ku soo gortayna waa iyaga halkan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee askarta ah saraakiisha ah waa kuwan Itoobiya dalka soo weerartay bay leeyihiin codkoodan idin daray idinka qosolkeeda ka dhamaanaya warqaduna waa ku daba xigtaa warqaduna waa ku daba xigtaa qofka haduu siyaasad lahayn oo istiraatiijiyad lahayn waa kaasa Itoobiyaanka ay ka cabanayaan ciidanku ay leeyihiin ciidanka Jubbaland ay la socdaan
hadduu lugaha haystaa garbaha saas u dhunkanaya meel kastuu ka dhunkanaya qabiil dartiisu aaday axmed madoobe la qabtaa bad kastaan idan siinayaa atmis ku biira waxaad rabtaan qaata ilmaada reer axmed madoobe la qabta waa kuwana askartii oo leh Itoobiya la dagaal yaa ka yeelay marka dadkii waa ku qosleen ma laba Itoobiya jirtay leeyihiin midda kale Itoobiya sawtu xasan wax walba uu ogolaaday maxay kaga hor imaanaysaa iyaga su'aashaas ma isweydiiyaan Itoobiya wax walba loo saxiixiyay xasan wax walba siiya maxay ula dagaalamaysaa markii may xasan wuxuu rabo u fuliso ila arkabal cadeeyo saacada aan taaganahay oo saacadii aad garanaysaan qof walba geeska Afrika joogo waqtiga ay ku beegan tahay in ay magaalada Doolow Soomaaliya xabad ka socoto xilligan xabadaas oo u dhaxaysa ciidamada qaranka Soomaaliya dawladda federaalka ciidamadeeda noocyada kala duwan ciidanka booliiska ciidanka nabad sugidda ciidanka militariga oo isku dhinac ah iyo ciidamada Itoobiya oo ku soo xadgudbay xuduudda Soomaaliya arrintaas dagaal qaawan oo bareer ay soo qaadeen hadda xabadda waa socotaa saldhigga booliiska ee degmada ka socotaa xarunta nabad sugidda ka socotaa aeroboortka ka socotaa taliska ciidanka militariga ka socotaa nabad sugidda intaas oo goobood bay ka socotaa ilaa iyo hadda annaguna hadda waxaan ku sugannahay in la hadlayo degmada balad xaawo haddii ilaahay yiraahdana waa dhaqaaqaya gurmad aniga iyo saraakiishayda waxba nagama harayaan halkaasaan aadaynaa Soomaalida marka waxaan la socodsiinaynaa iyo dhammaan madaxda qaranka arrintaas inay ogaadaan ku talagalaan annagu saacada laga bilaabo warkeennu waa difaac